بسم الله الرحمن الرحيم. فرتي شيخ حسين كدري. muuqaalkii kan ka horreeyey waxaan kaga hadalnay fartii cusmaaniyada ee taxanahan aan u hurnay farihii soomaalida ee taariikhiga ahaa. sheekh xuseen sheekh axmed hilowle kadare waxa uu ahaa aqoon-yahan cilmi baare ku takhasusay cilmiga luqadaha iyo qabiir hiddaha iyo dhaqanka soomaalida. waxa kale uu ahaa ninka alifay far soomaalida isaga loogu magac daray ee loo yaqaano farti kadare. sheekh xuseen kadare waxa uu ku dhashay magaalada cadale oo ku taala gobolka shabeellaha dhexe sannadkii 1934. farta uu sheekh xuseen kadare qoray waxay ahayd mid aad u horumarsan codayn ahaan phonetically ee af soomaaliga, aadna ugu habboon qoraal ahaan af soomaaliga, sida ay sheegeen guddi khubaro ah oo daraaseeyey farta kuna sameeyey cilmi baaris faraha soomaalida ee la qoray si loo soo xulo far soomaalida rasmiga ah ee uu dalka yeesho. guddiga oo dowladdii cusbeyd xorriyada kadib ay u xil saartay arrinta. xilka buurta ka culus ee ay guddiga degta u riteen oo ahaa ummad afkeed in far loo helo, waxayna u tafaxayteen siday uga dhabayn lahaayeen rayada far soomaali qoran oo soo jiitamaysay muddo ka badan qarni. guddigaa la magacaabay oo aan hore ugu soo sheegnay muuqaalkii kan ka horreeyey waxay kala ahaayeen muuse xaaji ismaaciil galaal guddoomiye, yaasiin cismaan yuusuf xubin, maxamed saalax ladane xubin, doctor ibraahim xaashi xubin, khaliif suudi xubin, mustafa sheekh xasan xubin, shiro jaamac xubin, xuseen sheekh axmed kadare xubin, yuusuf migaag samatar xoghay. hawsha guddigu waxay ka bilaabeen kadib markii ay shireen ayna isla meel dhigeen xeer hoosaadyada guddiga ku dhaqmi doono. waxay kale oo ay isla meel dhigeen 17 qodob oo looga baahan yahay far soomaalida rasmiga noqon doonto. waxayna ahaayeen qodobada ama shuruudaha laga rabo farta: inay ahaato far waafaqsan codadka caalamiga ah, in ay ahaato far sahlan, in ay ahaato far aan lahayn dhibco iyo jiitimo kor saaran xuruufaha marka laga reebo wixii ay isla oggolaadaan guddiga. astaan kasta oo ka mid a xuruufta inaysan lahayn wax ka badan hal adeegsi, inaysan lahayn xuruuf lagu kala garan karo oo keliya dhibco iyo jiitimo kor saaran xarfaha, in aysan lahayn shaqallo matala asaaska codka luqadda, in ay ahaato far lagu daabici karo makiinadaha wax lagu qoro ee dalka yaal, in ay ahaato mid la jaan qaadi karta astaamaha telegaraafka ama taarka, in ay ahaato far midaysan, in ay ku salaysnaataa habka alfabeetada, in ay ahaato far la socon karta dhaqaalaha dalka, in ay ahaato far marka la qorayo gacanta lagu qori karo lana daabici karo, in ay ahaato far la sii horumarin karo iyada oon la beddelin asaaska farta, in ay ahaato far lagu adeegsan karo lahjadaha afka soomaaliga oo dhan, in ay ahaato far lagu dhigi karo dugsiyada, in ay ahaato far gaar ah oo aysan ku jirin xuruuf far kale loo yaqaan, in ay ahaato far aan lahayn xarfo isu eeg oo uu akhriyuhu ku wareeri karo. 17 qodob waxay ahaayeen furaha sahla haddii aaraa kala duwan ay guddigu ka muujiyaan 2 ama wax ka badan oo faraha ka mida. markan guddigu waxay u gudbeen daraasaynta 18 far oo loo soo gudbiyey, taasoo la iclaamiyey in ciddii haysaa far soomaali ay u soo gudbiso guddiga muddo 15 maalmood ah si ay uga qayb qaadato xulidda farta ku habboon af soomaaliga. 11 faraha ka mid ah waxay lahaayeen xuruufo ay alifeen dad soomaali ah, 4na waxay ahaayeen xuruufo carabi ah, 3 kalena laatiin. intaa kadib waxaa la sameeyey guddi baaritaan ku sameeyo si loo kala bixiyo faraha la soo gudbiyey. waxayna kala ahaayeen muuse xaaji ismaaciil galaal guddoomiye, shiro jaamac guddoomiye ku-xigeen, xuseen sheekh axmed kadare xoghay, cali sheekh cabdulaahi qudbi xubin, doctor ibraahim xaashi xubin, maxamed jaamac xubin, abuukar sheekh maxamed xubin, cabdow sheekh cali xubin. markii farahaasi mid loo soo qaatay, farta guddiga ay ku bilaabeen baaritaanka waxay ahayd far soomaalidii kadare. waxay ka koobnayd farta 41 xaraf. waxaa qoraalka laga bilaabayay dhanka bidixda, waxayna ahayd mid la daabici karo, gacantana lagu qori karo. far soomaalida kadare waxyaabaha ay faraha kale kaga duwaneyd waxaa ka mid ahaa iyada oo uusan ku jirin xarafka kha, wuxuuna uga tegey erayada ka bilowdo xarafka kha kuma badnaa af soomaaliga. taa darteed ayuu uga reebay far soomaalidiisa. aniga shakhsiyan markaan xarafka isdul taagay oo baarbaaray erayo ku bilowda xarafka qa
waxaan keliya oo helay hal eray oo ahaa khuuro. waxaana jeclaa lahaa in daawadayaasha hadday hayaan erayo kale oo xarafkaa ka bilowda inay nagula wadaagaan faallada. guddigu markay falanqeeyeen habdhismeedka farta laguna dherariyey halbeegii ka koobnaa 17 qodob ee aan horey u soo sheegnay, waxaa u soo baxay in 9 qodob ay buuxisay oo ka mid ah 17 qodob, 8na aysan buuxin. sidaa daraaddeed waxay isla garteen in fartu tahay mid dhaqangal ah oo noqon karta farta afka Soomaaliga, waxayna u gudbiyeen tartanka qaybtiisa labaad. farta labaad waxay ahayd far Soomaalidii Cabdulqaadir Cadde Muunye, waxay ka koobneyd 35 xaraf. falanqayn kadib far Soomaalidii Muunye waxay buuxisay 4 qodob oo ka mid ah 17, 13na way buuxin weyday. far Soomaalida saddexaad waxay ahayd fartii Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi, waxay ka koobneyd 28 xaraf. baarid kadib fartu waxay buuxisay 5 qodob oo ka mid ah 17 qodob, 12na way buuxin weyday. farta afraad waxay ahayd far Soomaalidii Cismaan Yuusuf Keenadiid oo aan horey uga soo hadalnay, waxay ka koobneyd 41 xaraf. baarid kadib fartu waxay buuxisay 7 qodob oo 17 qodob ka mid ahaa oo ay isla meel dhigeen guddiga, waxayna buuxin weyday 10. farta shanaad waxay ahayd far Soomaalidii Mustafa Sheekh Xasan, waxay ka koobneyd 42 xaraf. iyadana baarid kadib waxay buuxisay 7 qodob, 10na way buuxin weyday. tan lixaad far Soomaalidii Daa'uud Maxamed, waxay ka koobnayd 26 xaraf, waxayna buuxisay 5 qodob oo ka mid ah 12na way buuxin weyday. tan toddobaad waxay ahayd fartii Cali Sheekh Cabdulaahi Qudbi, waxay ka koobnayd 41 xaraf. iyadana baarid kadib 5 qodob ayay buuxisay, 12na way buuxin weyday. farta sideedaad waxay ahayd far Soomaalidii Xuseen Sheekh Halaag, fartan waxay ka koobneyd 35 xaraf sidii kuwii hore oo kale. iyadana waxay buuxisay 4 qodob oo ka mid ah 17, 13na way buuxin weyday. farta sagaalaad far Soomaalidii Maxamed Jaamac Salaad, waxay ka koobneyd 40 xaraf. iyadana baaridda kadib waxay buuxisay 3 qodob, 14na way buuxin weyday. farta tobnaad far Soomaalidii Qaasim Hilowle, waxay ka koobneyd 41 xaraf. bidix ayaa laga bilaabayey, waxay buuxisay 7 qodob, 10na way buuxin weyday. far Soomaalidii Maxamuud Axmed Maxamed, waxay ka koobneyd 41 xaraf. bidixdaa laga bilaabayey, waxay buuxisay 5 qodob, 12na way buuxin weyday. farta 12aad waxay ahayd far Soomaalidii Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal, waxay ka koobneyd 41 xaraf. waxay buuxisay 5 qodob oo ka mid ah qodobadii 17 ahaa, 12na way buuxin weyday. farta 13aad waxay ahayd far Soomaalidii Sheekh Axmed Cismaan, waxay ka koobneyd 42 xaraf. iyadana baaris kadib 6 qodob ayay buuxisay, 12na way buuxin weyday. farta 14aad far Soomaalidii Ibraahim Xasan iyo saaxiibadii, fartan waxay ka koobneyd 41 xaraf. waxay buuxisay 6 ka mid ah qodobada, 12na way buuxin weyday. farta 15aad far Soomaalidii Maxamed Axmed Khayre, waxay ka koobneyd 41 xaraf. waxay buuxisay 6 qodob, 12na way ku guuldarraysatay. far Soomaalidii Shiro Jaamac oo ahayd farta 16aad, waxay ka koobneyd 41 xaraf. baaridda kadib waxay buuxisay 15 ka mid ah qodobada, 2na way buuxin weyday. farta 17aad waxay ahayd fartii Cabdi Khayre Cawaale, waxay ka koobneyd 41 xaraf. waxay buuxisay 14 qodob, 3na way buuxin weyday. tan u dambaysa oo ahayd farta 18aad waxay ahayd far Soomaalidii Xaliime Maxamed Cali, waxay ka koobneyd 36 xaraf. fartani waxay buuxisay 13 qodob oo ka mid ah 17, 4na way buuxin weyday. guddigu markuu soo afjaray tallaabada koowaad oo ahayd lafagurka far Soomaali walba oo ka mid ah faraha la soo gudbiyey, ayna diiwaan geliyeen dhibcaheeda togan iyo kuweeda taban oo ahaa waxyaabaha ay ku fiican tahay iyo waxyaabaha ay ku xun tahay, waxay guddiga soo saareen warbixin ay u soo gudbiyeen dowladda. waxyaabaha ay ku caddeeyeen warbixintaana waxaa ka mid ahaa: 11 far ee Soomaalida qoreen xuruuftooda waxaa loo qoraa sida laatiinka oo laga bilaabaa bidixda, kumana jirin mid laga bilaabo qoraalka midigta sida farta carabiga. taasi waxay tilmaamaysaa in Soomaalida ay door bidayeen xuruuf ku salaysan mabaadi'da farta laatiinka. xarfaha faraha ay Soomaalidu xuruuftooda alifeen waxay ku salaysnaayeen xarfaha laatiinka. in ka badan 4 dalool xarfaha waxay ahaayeen xarfo laatiin ah.
guud ahaan 11 far waxay ahaayeen kuwa aan la qaadan karin. 2 kaliya oo ka mid ah ayay suuragal ahayd in wax laga bedelo oo la horumariyo si ay u noqoto mid loo qaadan karo far Soomaali ahaan. waxayna kala ahaayeen farta koowaad oo uu alifay Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo farta labaad oo uu alifay Maxamuud Axmed. 8 ka soo haray 11 ay xuruuftooda Soomaalidu alifeen waxay lahaayeen ciladahan, ma ahayn kuwa waafaqsan habka codaynta caalamiga ah ee fonetika. dhaqaale ahaan wakhtigaa kuma habboonayn dalka iyo iyagoo aan ahayn kuwa la horumarin karo. sababaha dartood guddiga isaga oo u dhan wuxuu isku raacay in 8 far ee aan soo sheegnay in ay yihiin kuwa aan loo qaadan karin far Soomaali ahaan. haddaan u imaano farta 11aad oo ahayd fartuu alifay Maxamuud Axmed, waxay lahayd cillado ay ka mid ahaayeen habkeedu waa mid dhib badan oo lagu wareeri karo, ma laha far daabacan ee gacanta keliya ayaa lagu qori karin. sidaa darteed taa ayaa ka dhigtay mid aan la qaadan karin iyadana. waxa soo haray fartii Kadare. falanqayn kadib guddigu waxa uu isku waafaqay in waxyaabahan laga bedelo. 1 xarafka ba oo ahayd ba'da fudud iyo xarafka da oo ah da'da fudud in la tuuro, dhawaaqaana loo daayo ba'da iyo da'da caadiga. haddaan in yar ka sharaxno ba'da iyo da'da fudud. ba'da fudud waxaa ka mid ah ba'da ku jirto erayga abaar iyo abooto iyo abeeso. waa ba' fudud oo aan loogu dhawaaqi karin sida ba'da caadiga, laakiinse guddigu wuxuu isla gartay in loo daayo ba'da caadiga. da'da fudud iyadana waxaa ka mid ah erayada ay ku jirto erayga wadaad iyo qodobka la raaciyo erayo ay ka mid yihiin qorraxda. ilaa iyo 6 xaraf ayaa qaabkay u qornaayeen laga beddelay. habka tirsiimada isaga waa la tuuray, waxaana la qaatay tirada laatiinka. 2 xaraf oo lamaane ah ayaa lagu soo kordhiyey oo matalayay 2 cod oo ka mid ah codadka lahjadaha looga hadlo 2 jubbo, waxayna kala ahaayeen 2 xaraf. dib u habayntaa kadib far Soomaalida koowaad oo ahayd tii uu Kadare qoray waxaa la isla gartay in farta u gudubto doorashada u dambayso. habayntaa kadib guddigu waxay isku raaceen in farta Kadare ay buuxisay 10 shardi oo ka mid ah shuruudihii 17 qodob ahaa, ayna buuxin weyday 7. intaana waxaan ku soo gabagabaynaynaa ka hadalka fartii uu alifay Sheekh Xuseen Kadare. muuqaalka kan xigana waxaan kaga hadli doonaa far kale oo ka mid ah faraha taariikhiga ahaa ee ay Soomaalidu qoreen.